tiro al-shabaab ayaa lagu dilay subaxnimadii hore ee saaka garoonka diyaaradaha ee magaalada Baydhabo. taasi bedelkeedna waxa ay weerar ku qaadeen isla garoonka diyaaradaha ee magaalada Barawe ee isla Koonfur Galbeed Soomaaliya. soo dhawaada saaxiibayaal, xogahan ayaan halkan doonaya inaan kula wadaago. waxaana Cumar Guuxadi uu muuqaalkiisa soo gaaray si shirkado saaxiibadana la sii wadaaga qaybta hoose ee faallada aragtida nagula wadaaga. soo dhawaada saaxiibayaal mar kale. aynu ku bilowno magaalada Baydhabo ee xarunta kumeel gaarka ah ee Koonfur Galbeed Soomaaliya. subaxnimadii hore ee saaka weerar gantaalo loo adeegsaday ayay dagaalamayaal ka tirsan shabaab ay ku qaadeen garoonka diyaaradaha ee Shaati Guduud ee magaaladaas. waxaana la sheegay in qasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac ay ka dhasheen gantaaladaasi. halka ay weerarka si gaarka ah ugu qaadeen xubnahan waxaa degan ciidan ka tirsan kuwa Itoobiya oo ilaala ka haya garoonkaasi iyo guud ahaanba magaalada Baydhabo oo xarun kumeel gaar u ah Koonfur Galbeed Soomaaliya. waxaana la sheegay marka ay madaaficiyadaas ku dhaceen hareeraha garoonka iyagana ay bilaabeen inay ka daba tagaan cidda soo riday, halka laga soo riday iyo sidoo kale cidda ka dambaysa intaba. waxaana la sheegay in weerar ay ku qaadeen halka gantaalada laga soo tuuray oo ay aaminsanayeen inay ahaayeen xubno dagaalamayaal ah oo shabaabku ka tirsan. waxaana la xaqiijiyay in 3 horjooge oo ka tirsan dagaalamayaashii weerarka ku qaaday ama weerarka hoobiyaasha ah ku qaaday garoonka diyaaradaha ee magaalada Baydhabo ee xarunta kumeel gaarka ah ee Koonfur Galbeed. waxaana la sheegayaa in toogashada 3daas xubnood ay timid kadib howlgal ay iska kaashadeen dadka deegaanka, ciidamada Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo kuwa Itoobiya. waxaana la sheegayaa in 3 ruux ee la toogtay halkaas laga soo qaaday, sidoo kalena ay jiraan dhaawacyo la gaarsiiyay xubnihii dagaalamayaasha ahaa ee weerarka soo qaaday oo iyagana goobta ka baxsaday, sida ay xaqiijinayaan saraakiil amni oo ku sugan gudaha magaalada Baydhabo ee xarunta dowlad goboleedkaasi ama kumeel gaarka ah ee Koonfur Galbeed. taasi bedelkeed shabaab saaka waxa ay weerar ku qaadeen mar kale garoonkii diyaaradaha ee magaalada Barawe ee xarunta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. waxaana la sheegayaa in marka hore ay adeegsadeen gantaalo dhowr ah oo ay ku dhufteen xiro ciidanka ATMIS ay ku leeyihiin garoonka diyaaradaha ee magaaladaas. waxaana la sheegay inay xigtay rasaas goos ah, kadibna waxa xigay dagaal toos ah oo ay fuliyeen dagaalamayaashii weerarka soo qaaday ee shabaabku ka tirsanaa, iyadoo ciidamadii ATMIS ee halkaas ku sugnaana ay adeegsadeen hub waxa ay haysteen intaba. waxaana la sheegay in dagaalkaas uu ka dhashay qasaare xoogan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac. dadka deegaanka oo xaqiijiyay inay maqlayeen hubka jugta culus ama jugta hubka culus ayaa tilmaamay inay arkeen tiro meydad ah oo ilaa iyo hadda aysan xaqiijin karin inta ay gaarsiisan yihiin. dhaawacyo ayaa jira sida dadka deegaanka ay tilmaameen oo gaaray dagaalamayaasha shabaabku ah ee weerarka ku soo qaaday garoonka diyaaradaha ee magaalada Barawe ee xarunta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. ciidamadii ATMIS ee halkaas ku sugnaa dhankooda qasaare ayaa laga soo wariyay inay gaareen. waxaana dagaalka oo muddo saacad ah socday kadib la sheegay inuu istaagay, xilliganna howlgallo ay bilaabeen ciidamada ammaanka degmada Barawe ee xarunta Koonfur Galbeed iyo ciidamada ATMIS oo iskaashanaya si looga daba tago dagaalamayaasha shabaabku ay weerarka soo qaaday ee halkaas xubnahooda qaar kamid ah looga dilay, sidoo kalena halka qaar kalena dhaawac lagu gaarsiiyay. al-shabaab waxa ay sheegeen in 2 xarun oo ay lahaayeen ciidamada howlgalka kumeel gaarka u jooga Soomaaliya ee ATMIS oo ku kala yaala Baydhabo iyo Barawe ay weerareen, sida ay u doonayeen qorshahooduna ahaa ay u fuliyeen weeraradaas. saraakiisha ammaanka ee magaalada Barawe iyo sidoo kale kuwa Baydhabana waxa ay xaqiijiyeen in weerarkii lagu soo qaaday ay fashiliyeen oo ay ka daba tagi doonaan xubnihii weerarka soo qaaday ee dib uga laabtay halka ay soo weerareen.